ciidamada EU NAVFOR ee ka howlgala xeebaha wadanka Soomaaliya una jooga howlaha la dagaalanka burcadbadeeda ayaa maanta koox saxafiyiin Soomaaliya waxay helicopter kaga qaadeen airportka caalamiga ah ee wadankan Jamhuuriyadda Djibouti iyagoo kolkaasina geeyay markabka dagaalka ee laga leeyahay wadanka Talyaaniga isla markaana iminka hoggaanka u ah ciidamada midowga Yurub ee ku sugan xeebaha wadanka Soomaaliya kooxdan saxafiyiinta oo ay ka mid ahaayeen koox ka socota telefishinka qaranka Soomaaliyeed ayaa waxaanu kula kulannay markabka dushiisa saraakiil ka tirsan ciidamada EU NAVFOR kuwaas oo ka warbixiyay xaaladaha kala duwan ee ka jira xeebaha wadanka Soomaaliya sida ay ciidamadaasi burcadbadeeda ula dagaalamaan iyo waliba qalabka ay adeegsadaan intaba waxayna noo shideen film documentary oo ay ka duubeen sida ay u shaqeeyaan iyo waliba tirada burcadbadeeda ay iyagu la kulmeen waxaana sidoo kale goobtaasi ay ku soo bandhigeen howlgallada sanadihii 2009 2011 iyo 2012 kuwii fashilmay kuwii burcadbadeedu ay ku guuleysteen iyo waliba kuwii burcadbadeeda laga badbaadiyay intaba sargaalka u sareeya ciidamada midowga Yurub ee ku sugan xeebaha wadanka Soomaaliya ayaa waxa uu warbaahinta uga warbixiyay waxa shaqadoodu ay tahay waxa sidoo kale aan wax ka weydiinay bal xiriir inay leeyihiin dawladda federaalka ku meel gaarka Soomaaliya waxa uu sheegay inaanay jirin la imika xiriir ay la leeyihiin hase ahaatee uu socdo wada hadalla arrintaasi ku saabsan maraakiibta ku sugan xeebaha wadanka Soomaaliya mas'uuliyiinta la socota iyo ciidamadaba waxa ay yihiin kuwa had iyo jeer u feejigan la dagaalanka burcadbadeeda sida uu sheegay taliyaha ciidamada midowga Yurub ee ku sugan xeebaha wadanka Soomaaliya waxa sidoo kale markabkaasi oo ku soo wareegnay kula kulannay qaabka ciidamada ay u shaqeeyaan iyo waliba howlgallada ciidamada marka lagu gudo jiro howlaha la dagaalanka burcadbadeeda